Waxaan ahay dal 30 sano ka badan burbursan. Waxaan ahay dal dadkiisii qaxoonti ka noqdeen. Waxaan ku noolnahay dal dadkiisii dawrsiga dawladda danahooda eeganaya, dabarucleynayaan, dantoodana uga hareen, mid aan ku diin, dhaqan, af iyo isir midna aysan la wadaagin. Balse doqonnimo iyo daciifnimo Soomaali keentay, baday, qaharka iyo dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ahay dal dunidu u aragto waddan magaciisu bari jiray, balse maanta dawlado kale maamulkiisa ay hayaan. Waxaan ahay dal dadkiisu muddo ka badan 30 sano ay isku dilayaan qabiil. Waxaan ahay dal quwaddii uu lahaa dadkiisu qiimo tireen. Waxaan ahay dal iyo dad ay dunidu u diiwaan gelisay waddan argagixiso oo dadka lagu qasho. Waxaan ahay Soomaali qori la isugu dhiibay, dhiiguna waddankiisa uu ka yahay wax qiimo jaban. Waxaan ahay Soomaali qadarin la'aan iyo quursi ku jooga wadamada caalamka. Waxaan ahay Soomaali awoodiisu tahay qabyaalad. Quwaddii iyo qabkii Soomaalinimo waxaa maanta qiimo tiray, qarniyana ay Soomaali ku sii jiraysaa. Waa qabqable ku hubaysan shar qabiileed oo qowlkiisu yahay sideen maanta quudkii ku helaa. 30 sano ka badan ayay Soomaali qax ka tahay dhulkii qaniga ahaa ee Rabbi ku abuuray. Waxaana maalin kasta lagu daadinayaa dhiigga maata aan waxba galabsan, suusan qof Soomaali ahay u heleen kheyraadka qotomo dhulkiisa. Soomaali baan ahay rajo iyo naawil ka qaba Soomaalidan, midba qaran u gaara iyo dawlado lagu dhisay qaab qabiil, calanna u samaystay ku dul nool. Balse awooddii iyo quwaddii aqooneed ee qofku lahaa qorigu u yahay quwadda koowaad ee halis gelinaysa naftiisa. Waxaan ilaashanayaa qaran dadkiisu ku hoos qiimo iyo rajo beeleen, quusna ay ka taagan yihiin qaharka iyo dhibaatada ku dhacaysa darteed. Waxaan ahay Soomaali qabiilkiisu leeyahay calan iyo maalin ka qiimo weyn maalmihii qaranku lahaa. Waxaan ahay Soomaali qofkii qiimaha qarannimo ka hadla qoorta loo dheeraynayo, qabqabluhuna ka yahay haliyey qiimo badan oo qadarin iyo mudnaan loo hayo. Waxaan ahay Soomaali qarnigan dhashiye ilaa maalintan ay indhihiisu qabanayaan qarax iyo qoys ilmada qubaya oo qudha laga jaray midkii ay dharaaray iyo habeen dhabta hooyo ku soo qaaday, aqoonna sababta loo qalay Soomaaliga qiimaha lahaa. Waxaan ahay dal ay madaxdiisu talada iyo garta u gooyn ee garashada iyo taladaba loogu laabto duul kale oo qorshahoodu yahay baabi'inta qiimihii iyo quruxdii Soomaalinimo si ay u helaan dalkan kheyraadkiisa dabiiciga ah. Qarannimo waxaan ku bedelnay khiyaano qaran iyo kala qoqob bulsho oo qaarba meel ayaa lagu qoolaabay. Soomaali baan ahay isku dhiig, isku af, isku dhaqan, isku diin, isku diir wada dhashay, balse isku qalata qabiil iyo qorshayaal diimeed oo qarankan looga keenay qaarada kale. Waxaan ku noolnahay dal aqoonyahankiisu qaarada kale aqoontiisa iyo qowlkiisa wanaagsan ugu qidmeeyo, qarankiisana qabqabla baasiyo, duul qaar kale la shaqaysta u yihiin aqoonyahano. Qorshe kasta oo Soomaali leedahayna waxaa quruxda koowaad u ah in dhiig dad Soomaaliyeed lagu daadiyo qolqol kasta oo hooyo ku hoyato. 30 sano qorshe la'aan iyo waxaan nahay dad qabiil ahaan isku haysto weli qeyrkooda aan gaarin halka dunidu u tallaabsatay horumarka adduunyadu gaarayso. Waxaan nahay dad ka harayo qeyrkood aan marnaba hiigsan. Qormadan saaxiibayaal waxaan ku eegaynay sida aan qeyrkeen uga harnay iyo sidoo kale in dadka Soomaaliyeed aysan weli ku baraarugsanayn. Maasantii saaxiibayaal hadda halkan nala soo gaarteen, noo soo subscribe gareeya barteena YouTube-ka si aan u soo gudbino muuqaallo idin dhiirigeliya.